duulaanka safka ballaaran ee howlgalka dhamaystirka wejiga koowaad ee xoreynta dalka ee lagu baacsanayo khawaarijta ku go'doonsan deegaanada bariga galgaduud ayaa xaqiijiyay guulihii ugu horeeyay. ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo ka dhaqaaqay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa la wareegay deegaanka Warxo oo isaga bixin maleeshiyaadkii kooxda gobolkeedu sii dhacayo ee Al-Shabaab. Guraceel ciidamo isugu jira haliyada xaquudirka ee dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo horkacayo gudoomiyaha degmadaasi ayaa khawaarijta ka saaray deegaanada kala ah Daadaale, Habar Cirir, Xinfardood iyo Jaaw oo dhammaantood hoos taga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. magaalada Dhuusamareeb ciidamo habeennimadii xalay ka dhaqaaqay ayaa kulaalaya deegaanka Ceel la helay oo ay u jiraan wax ka yar 10 kiiloomitir iyaga oo muddadii ay wadada ku sii jireen ku guuleystay burburinta fariisimo maleeshiyaadka ku lahaayeen deegaanada Sinidhaqo iyo Dhuumoodley ee gobolka Galgaduud. marka laga reebo miinooyin ay ku aaseen wadooyinka deegaanadaasi gala oo lagu guuleystay soo saaristooda, ciidamada qaranka iyo kuwa deegaankuba laba kulmin wax iska caabina. Galcad oo iyana Galgaduud ka tirsan waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Sheekh Muxyidiin oo hogaaminaya cul xoogan oo qayb ka ah howlgalka lagu qabanayo degmada Facaweyn ee Ceelbuur si go'doonka nololeed looga qaado bulshada deegaankaasi ee khawaarijtu muddada dheer ay duuleysanayeen. sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo ka dhaqaaqay Cadaado, Baxdo, Wisil iyo Xaradheere ayaa iyana fooda ku haya deegaano khawaarijtu horey u maamuli jirtay oo uu ka mid yahay deegaanka Xiindheere balse haata badankooda isaga bixeen kadib markii ay dareemeen culayska xoogan ee soo food saaray. waxaa muuqata in si habsami leh oo u socdo guulo muuqdana lagu daahfuray howlgalka dhamaystirka wejiga koowaad ee dagaalka dalka looga xoreynayo khawaarijta kadib 16 habeen oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud caasimadda Galmudug u joogay agaasinka howlgalkan oo muhiim u ah qorshaha guud ee ka taqallusida khawaarijta. howlgalku waa mid si xawli ah ku socda daqiiqadba daqiiqada ay ka dambeysana la filan karo guulo hor leh oo ay gaaraan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ee iskaashanaya. dhinaca horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka go'doonsan ee khawaarijta kaga sugan bariga Galgaduud talafara uguma jirto ma jirto wada u furan oo ay kaga cararaan colka xoogan ee ku soo wajahan, waxaana u bilowday maalmo mugdi ah oo ay guranayaan mirihii ay beerteen ee tacadiga iyo gaboodfalka ka dhanka ah dadkeena. waa dhab waxa aan joognaa dhamaadka maalmihii maafiyada Al-Shabaab